السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن لما خيارتنا داونيساي waxaad ku soo dhawaataan Qorraxay TV. waa tahay daawadayaal waxaan fursad u yeelanay in aan halkan idinka soo gudbino shirweynihii ay qabatay jaaliyadda Soomaalida Ogaadenya ee magaalada San Diego 8 bisha Abriil 2002. shirweynahan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada San Diego iyo nawaaxigeeda. shirkan ayaa waxaa si khaas ah loogu martiqaaday madaxa hoggaanka abaabulka iyo arrimaha bulshada ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya nafti hore Maxamed Cabdi Yaasiin Diirane. waxaa idin soo gudbinaya aniga oo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Cabdiraxmaan Hollywood. waxaana idin leeyahay daawasho wacan. ka maqana ma garanayo waxa ka maqanaya waxa u jooga midna ma garanayo. ruuxu islaamnimada intaas oo dhan hogaamisa oo asaaskeeda ah kolkii uu garanayo wuxuu yiri ma yacriful madluba yahqir ma badal balay. qofku waxa uu doonayo kolkuu garanayo dadaalku muujiyo dhan waa la yaraanaya waxaan waxba ahayn buu la noqonaya. wada ma wadman xasantiin dhamaantiin hadal badan inay aan idin jeedin maan u soo istaagin ama leeyahay yeerin kaliya inaan idin ku soo dhaweeyno aan idin kuna mahadnaqno aan dhamaanteen sidaan uga soo wada qayb qaadanay baan ay taragalkii inaan u soo istaagay ahayd waana mahadsantiin dhamaantiin kuna soo dhawaada runtii San Diego maxaa la dhahaa muhiimadeedu iyo maxay ahayd sida ay hawlaha ay u qabato waxa weeye kaalinta kaga jirto wax qabadka halganka de kulay
dadka inaga maqan baa yaa had iyo jeer maxay ahaydii inoo sheega inagu waxba badan kama ogin laakiin yaynaan fududaysanin hawsha aynu hayno. kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha cusub ee jaaliyadda soomaalida ogaadeenaya mudane ibraahim cabdiqaadir. saad aragtaanba nin qurux badan baa bedelaa la yidhi marka aad u mahadsantihiin. middaa marka laga tago waxaan rabay inaan wax yar maaragtay aan ku soo dhaweeyo hoggaanka abaabulka iyo arrimaha bulshada west coast guud ahaan gaar ahaanna magaalada San Diego oo ah lafdhabarka halganka ummadda reer Ogaadenya sidii loogu raadin lahaa xorriyaddeeda. waa dad jecel in ummadooda la gumaysanayo ay wax la qaybsadaan dhibka ka jira waddankiina aad iyo aad uga warhaya mar kastana u taagan in ay wixii ay u heli karaan af adin xoolo wax kastaba inay la garab istaagaan ayay u taagan yihiin. waa dad isku tashaday ayaku dhalinyaro haween iyo waayeel ummadoodaas dhibaataysan dhibaatada ooga saari lahaayeen. marka horena waxaad naga guddoomaysaa salaan diiran reer San Diego qalbigooda ka soo go'day niyadooda ka soo go'day jacaylka ay jabhadda u qabaana ka soo go'day. marka hore jaal guddoomiye laga guddoon. tan labaad waxaan salaan taasoo kale u diraynaa reer San Diego haddaan nahay waxaan San Diego haddaan nahay u diraynaa jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya yaan u diraynaa. waxaa kaloon halkaa ka sii salaamaynaa oon salaanteenna sii gaarsiinayna oo jecelna inaan daga gaarsiiso ciidamada geesiyaasha ah ee muxuu ahaa maanta u jilib dhigay baabi'iyeyna ka hor imaadayna himiladii isticmaalka uu doonayay ka hor yimid muxuu ahaa maanta gaarsiiyey cadowgii inay muxuu ahaa tallaabo qaadi waayaan gaarsiiyey ummadeenna waan ognahay. maanta laguma noolaadeen dhulka Ogaadenya haddaayan jirin ciidamada geesiyaasha ah ee u jilbdhiga haddaayan jirin dhulka Ogaadenya laguma noolaadeen. waxaan leeyahay magowdocandadii golaha marise hanmaaloo hashe namaandeeqe yahay ilaahay codna uu ku bandaystay anugu ma dabageli karo codkaygu subaxiina waa Maki Xaaji Banaadir galabtiina waa Axmed Maxamed Nairobi marka ma sha Allah salaadii baa la gaaray marka barnaamijkiina hawlo badan waxa dhihi jireen faano la farqay insha Allah wal all faanidi waxa sameeynaa haddana waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo the main event adeer Maxamed Cabdi Yaasiin guddoomiyaha hoggaanka abaabulka iyo arrimaha bulshada oo dal dheer inooga yimid socdaal dheerna hadda ku jooga Mareykanka. waxaa weeye waa aanar inuu noo yimaado oo nagala soo qayb qaato muxuu ahaa shirka kan oo inoo qabto waayo taariikhdiisa haddii aad la socoto waa qof caalima mutacallima marka waxba ku sii dheeraan maayo. waxaan jeclaan lahaa inaad sacab ku soo dhaweysaan sacab buuxa in lagu soo dhaweeyo mudana بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantiin waan idin salaamay. uusiikum waiyaya bitaqwa allah. naftayda iyo dhammaanteen waxaan inoo dardaarmayaa cabsida ilaahay. taqwada ilaahay baan dhammaanteen inoo dardaarmayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka siduu u sheegay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. qofkii ilaahay ka cabsadaa ayaa markaa wuxuu fuliyey wixii loo abuuray. taqwadiina waa kii sheekhu inoo sheegayo waa laba dhinacoo wixii lagaa reebay ood ka reebtoonaatay iyo wixii lagu faray ood yeesho. haddaba dhammaantiin waa idin salaamayaa salaanta islaamka ka bacdi. waxa layna faray ee inaan yeela laynaga doonayo maxaa ka mid a horta marka u horraysa waa inaan waajibaadka gudanno. waajibaadka ina saaran ee faralka ah inaan gudanno. faralkaa si aynu u gudanno waxaa lagaba maarmaana marka inaynu aqoon u yeelano aynu baranno horta waxa faralka inugu ah iyo waxa aan laynaga reebay inaynu ka reebtoonaannaba iyo waxa layna faray inaynu fartoonno. in yar waxaan ku yar laabanayaa hawsha aynu caawa meeshan isugu nimid waxaa weeye inaynu ummadda soomaaliyeed ee ogaadanya kaga xorayno rijsiga iyo gumaysiga iyo dullaysiga ay gumaysiga madowga etoobiya ku hayo. ummaddaas soomaaliyeed ee la dulaysanaya ee islaamkaa dagaalka marka halka ay kaga jirtahay waa dagaal noocmaa horta ma dagaal waajibaha ma fardulcayn baa se waajibkiisu mise waa fardulkifaaya. waxaa weeye fardulcayn goormuuse dagaalku noqdaa goormuuse fardulkifaaya noqdaa. culimmadu waxaan u malay inay wada ogtahaye fardulkifaaya wuxuu noqon lahaa haddii dhulka islaamka oo dhani uu ka dahiran yahay haysashada iyo gumaysiga gaalada. markaa meel uu ka sii socdo intii kale fardulkifaaya ku noqon lahaa ee uu ka dhalo. laakiin dhul islaamka markuu soo galo ee xoog ku qabsado horta marka u horraysa kuwuu soo galay fardulcayn buu ku noqonaya. dhulkeennase miyuusan hayn ka dhulka uu ku qabsadee gurigaagii intuu soo galay uu kugu dullaysanayay. sidaad awgeed qofka reer ogaadeeyaa kolkii gurigiisii la soo galay oo xaaladda uu ku sugnaaday waajib cayni ah ayaa fuulay inuu dagaalkaa galo. waxaa timid hadduu ku fillaan waayo wax alla waxa xuduudda alla islaama hadday ku fillaan waayaan wixii ka sisheeya alaqrab falaqrab bay noqonaysaa. marka kuba ku uga dhow yahay fardulcayn ku noqonaysaa. waxaa marka u ekaanaysaa halkaa hadda markaan qiyaasno qof kastoo islaama maanta dagaalka ka socda ogaadaya inuu fardulcayn ku yahay. sababtu maxay tahay saa waynu u taag weynay oo dhibaatadii halkaasay maraysaa. islaamkii marka qoladaan la dagaalamayna waxaa laga yaabaa kuwo kale oo diin ama ugu helayna ama cid kaleo si kastaba ugu helisee inay mucaawino ka helayaan marka kuwanin ay ka waayeen. fardulcayn waxay noqotaa oo kale labada ciidan markay isku soo baxaan qofka meeshaa taagan ee dagaalka la isku soo baxay waa fardulcayn isagan oo wuxuu ku noqonayaa tawalli yooma zaxfi waa waxaan la ogolayn oo maalinta kol haddii labada ciidan isku soo gurgurtaan lama ogola iyadan. fardulcayn wuxuu noqon lahaa oo kaleeto haddii imaamka meeshaa jooga uu faro. innaga dalkeenna waxaa ka jiraya saasuu horta fardulcayn u yahay. kuwa aayadda qur-aankii la hadlay baynu nahay. ciddii gudan hadday lafaheeday u gudanaysaa xaasibuu qabla an tuxaasib. naftiinna idinku isxaasibiyo intaan laydin xisaabin baa taalla. aayadda qur-aanka ilaahi subxaanahu wa tacaala waxay ahayd wamaa lakum laa tuqaatiluuna fi sabiili illahi والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. برو في رصدا maxaad ugu dagaaman laadihiin jidka ilaahay iyo kuwa la ducfisanayo macnihii inaad dulliga ka saartaan. bal aan isweydiinne dhulkeenni iyo dadkeenni ma la dulisanaya gabdhihii ma lagu kufsanayaa
carruurtii ma la gubayaa odayaashii ma la gowracayaa 70 jirrada jeelasha ma loo taxaabaya hadday haa tahay soo inaan mustadcaf may aha marka kuwa layna amraya inaan ka saarno soo ma aha kuwa la amrayaa sise yihiin waa qof kasta oo muslina oo baaliq ah oo ehelka iyo eryadaba jooga ama ka ugu dhow hadday kuwaas wax ka qaban waayeen arrintaas horta dhammaanteen fadlugaas ayay inagu tahay qof walowba adigu si aad u niyeysato ayaa kuu taalla haddii aad gudata adiga ayaa ajrigeeda leh haddaad gudan weydana haddee ilaahay baa kaala xisaabtamaya dhanka kaleeto waxaa timid qofka hawsha noocaas oo kalea intuu ka xisaabta ka hor yimaado dhanka mara cadowga haadaa diinka bax weyn dagaalka markuu noocaa yahay islaam iyo dagaalkii labadaas fardulcaynka halkaa la kala joogay labadiisa iska hor jooga ninka khiyaarkiisa ku gala sabka gaalada iya uu ka mid noqonaya kuwa meelaha fadhfadhiya ama af ugu kaalmeeyo ama adin ha ugu kaalmeeyo ama maal ha ugu kaalmeeye diinka bax weeye ha la ogaado xadiiskii nabigana maxay ahayd calayhi isalaatu wasalaam jaahiduu biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum kuwa hadda meelaha intay ka doodayaan baararka fadhiya ee etoobiya iyo barnaamijkay faafinayso ee ku cajigelinaya kuwa mujaahidiintahay iyo kuwa dagaalka wada iyagoon is ogay bay munaafiqiin noqdeen taana horta ha la ogaado oo hadduu isku wado qofku aqoon darra hadday hayso culimadii inay u sheegto aynu aad ugu dhawaaqno ayaa loo baahan yahay ee ha lagu baraarujiyo intaas waxaa weeye waxaan kaga baxayaa runtii mawduuca ilaahay ha inaga ajirsiiyo inama alacmaalu binniyaat weeye waxaynu niyeysanaynaa inuu ilaahay dartii aynu hawsha u qabanayno intaa markaan ka tago dhammaantiin waa idin mahadnaqayaa imaatinka aad timaadeen iyo ajiibka aad soo ajiibteen inaad ka soo qayb gashaan kulankan aad baan idinku mahadnaqay waxaan mahad gaar u sii celinayaa colonel zaciim cabdullaahi cumar feen oo aad wada taqaan oo hadda odayga cumar feen ahaa buu jilayaa dee ma gaadheen waad garanaysaan nin zaciim oo caan ah oo la wada yaqaano ayaa dhalay raadkiisii buu lahayaa aad buu ugu mahadsan yahay salaamtii iyo soo dhowayntiina waa idinka guddoomay waxaan idinka gaadhsiinayaa dhammaan naftood hurayaasha wakhtigood hurayaasha jeebkood hurayaasha iyo afkood hurayaasha intaba macnihii cid kasta oo qadiyada wax u qabanaysa qof waliba waxbay u hurtahay wakhtigiisa qad baa hura qaar baa maalka hura qaar baa waxay hurayaan mataqaanaa wakhtigooda iyo naftooda wada jira iyo kulligood geesiyaasha masoo laabtayaasha ah ee jabhadda waddaniga xoraynta ogaadaya ciidanka waddaniga xoraynta ogaadaya waan gaadhsiinayaa insha allahu tacaala salaantaa iyo dadaalka aad meesha ka muujiseen intaa markaan ka gudbo halgankan wax yar haddaan in yar dib uga taabto maanta ay overlef hogaaminayso waxaad ogaataan ood wada ogtihiin inuu halgan soo jireena uu ahaa sidoo cabdullaahi u sheegaya wey waa qori isu dhiib cid la odhan kara hadda maanta anaa bilaabay oo hadda nooli ma jirto ilaa axmed gurey ilaa wakti ka horreeyey dagaal soo jiray wey axmed gurey wuu ugu caansanaa laakiin axmed gurey isagoo weliba islaamka la ducfiyey ayuu kor u qaaday oo xabashida uu sii fogeeyee dagaallo ka horreeya waxaa jiray aad u fara badnaa dagaalkii saasaa ee qori isu dhiibka ahaa ee maalinba maalin noqonaysay eed ogtihiin sayid maxamed 25 sano dagaal xidhiidha inuu galay waxaad ogtihiin inuu ahaa dagaalka geeska africa ama dagaalkii daraawiish ama gobonnimo doonkii reer ogaadanya ama soomaaliyeed inuu ahaa adduunka meel yurub ka baxsan dayaarad meel lagagala dagaalamay meeshu horreysay waa siduu sheegaya jamaal sheekh cabdilla xasan markay dayaaradda soo ridaysayna dayaarad lagu soo rido meel ka baxsan yurub tii ugu horraysay bay iyaduna ahayd gabadh soomaaliyeed soo rida tii ugu horraysay bay ahayd waxaa weeye dagaalkani dagaal saa u soo jiray buu ahaa inta gooree dadkani barakaceen inta gooree dagaalkani socdayna lama xisaabin karo waxyaalo badan oo hadda taariikhda inaan dib ugu sii noqdo aanan doonin oo dee wakhti dheer u baahan baa jira hadda xaaladda aynu ku jirno isaga oo aad og tihiin oo soomaali ay ka dhacday civil war ama dagaal ehlihii ka dhacay oo laga soo qaxay soomaaliya dadkeenna oo horay markii hore ugu qaxay soomaalina ay
fidna ka aloosantay uu qofba qofka u xiga mataqaanaa uu cadow u yahay Soomaali uu suniya waabay u noqday yaa haddana waxaa kalifantay in dagaal aynu dib u gallo oo aynu dagaalkii gobonimadoonka dib u qaadno qorigiisa dadku waxay isweydiiyaan xilligaasi xilli adag buu ahaaye maxay saas ku dhacday runtii xilligaasi inuu aad u adkaa waxaad ku garanaysaan dadkeenni wuu soo wada qaxay Soomaali oo dhanna ninba nin buu dilayay taa waxaaba ka sii daran geeska Afrika waxaa diiq ka noqday cadowgii Soomaaliyeed waxaabase ka sii daray qof kastoo Soomaali ah isu dhibay cadowgii Soomaaliyeed waxay ahayd arrin aad iyo aad u adag in markaa dagaal lagala hortago nimanka saa maxaan haysanayna waxaan haysanay aad buu yaraa laakiin waxaan diidnay maalinta arrin miiska la soo saaray waxaad ogtihiin 91kii markii lagu heshiiyey miisaaqi ama jaartarkii Ethiopia ogaadeen markaa lagu heshiiyey wuxuu ahaa labadii sano ee soo socota markii aad sabab qabteen 91kii in ay Ethiopia si xukumaan jabhadii caasimadda qabatay oo markaa TPLF ahayd magacii ERPF la yidhaahdana ku magacoonay labada sano gudahooda ama muddada yar ilaa ugu badnaan 2 sano iyo badh qoomiyad waliba inay dawlad dhifsato baarlamaanna samaysato muddada gudaheeda ciddii ku qanci weyday inay Ethiopia ku sii jirto ama ka mid sii ahaatana ay baarlamaankeeda fadhiisto 3 meeloodow laba hadday isku raacdo Ethiopia in laga ka go'aan afti laga qaado oo afti codsadaan 3 meelood gudahoodna aftida dawladda dhex ku fadhiiso Eritrea waxay ka qayb gashay miisaaqa laakiin saasay ku go'day wayna meel marsatay sababtuna waxay ahayd Eritrea kuwa kaliya loogu talagalay bay ahayd baan oran karaynaa awoodeeda ay ku difaacatay lahayd cidina kama daba tagin marka sidii bay ku go'day innagana waxaan dhamaan markana arrinta meel marin Tigray markuu arrinta ogaaday waxaa la yiri waa la baabiyay arrinta constitution cusub baa la keenay wuxuu oranayaa constitution cusub waa in Ethiopia la wada noqdaa warqadaan naloo keenay la leeyahay saxiixa inay ogaadeen tahay party and parcel of Ethiopia qayb kamid ah oo kama gooda ah Ethiopia inay tahay waxay noqotay ku ka jaanin oo aqaana war arrinta cidda qaadan karta ama aqbali karta ayay noqonaysaa laba daran mid dooro yaa yay noqoto ama xabad dooro ama qadiyadii soo jireenka ahayd ee ilaa qarnigii 16aad xabadeedu ayna kala go'in yaa ee dagaalkii hadda ka soo bilowday aad ogtiin ilaa maalinka heer la qabsaday sidii u jooga aad la socotaan maalintii garigari wixii ka dhacay afartii doodee harar baa dhiigu ka dareeray baa la yiraahdaa maalintuu nin aqli badnaa naxariista Allah siya cali gareed loo oran jiray yaa waxaa la yiri nin buu yiri war meesha inaga soo bix safar iyo waa ku yimid meesha jooga ninkii baa wuxuu yiri magaaladu way foolanaysaa meesha inaga soo bixi buu war magaaladu inay foolan maxaad ku garatay wuxuu yiri hal foolan baan garan jiray ma magaalada dhan oo foolanaysan garan waay hal foolan yaaban garan aqoon fahmi jiray magaalo idiloo foolanaysa miyaan garan waay wuxuu yiri inaga soo bixi ninkii wuxuu yiri alaab baan ka soo qaadanayaa waa sheekadu si arku maqlay alaab baan soo qaadanayay siiso wuxuu yiri war ha ku noqon wuu ku galay dib ugu ma soo noqon ilaa maalinka dagaalka iyo dadkaasi loo soo dulaysanay 1900kii dagaalkii Jigjiga ka dhacay waad ogtihiin 3,000 oo reer ogaadeen ku dhimatay 300 oo Ethiopiana oo qoriyo haysata yay weerareen iyagoo dad fara badan laakiin wax qori aan haysanin oo waran iyo tooriyo wata ninkii u dambeeyay bay qabteen maalinka jariyada la yiraahdo Daily Mail ee waddanka Ingiriiska lagu soo qoray maqaalkii koobaad ay soo saarto ah sanad guuradeedii 2000kii millenniumkii ayay maqaalkii dib u soo xigatay library-yada hadda ka helaysaa dagaal ilaa inta soo jiray ayuu ahaa miyay noqon kartaa markii inaan idhaahno iska taga oo qabsada maanta ogaadanya dhul la gumaystayna ma aha hadda hadalku uu sheegayay aad iyo aad ugu mahadsan yahay mataqaana Cabdiraxmaan Maxamuud Sheekh Cabdi Ethiopia waxay kaga duwan tahay dhulalka Afrikaanka dispute-ka ka shaqeeya ama khilaafaadka ka dhaxeeya Ethiopia dhul bay qabsatay wadamada Yurub bay ka qayb qaadatay Berlin Conference bay qayb ka ahayd marka qaybihii dhulalkii lagu qaatay Berlin Conference iyo mucaahadadii la midka ahaa waa la wada xoray
decolonization baa lagu sameeyey except ogaadeen inta kale oo dhani waa dhul wada la wada gumaystay ciddii gumaysanaysana way ka wada tagtay kadib iyagu khilaafaad ha u dhaxeeyo ama ha wada noolaadeen isku meella way ka bilaabeen oo innagu xaggaynu kala bilownay ma nimanka ilaa intaan ku gumaysanayaynu wada bilownay mise aynu weligeenba aynu noqon karaynaa dee dad lala simo kuwa inta gumaysi wada qabsaday uu ka tegay sidaa awgeed gumaysigii reer yurub bay ka mid tahay in laga xoroobana waajib wey xilliga dagaalkaasi marka aan hadda uu noqday inaanu bilowno marar kalena waan sheegay aad bay noogu adkay maalintaa waxaan haysanay garigo-aanna lagu soo weeray 1994 bishii abril 20keedii garigo-aan annagoo joognay yaa cirkana nalaga soo weeray dhulkana nalaga soo weeray dhaqaalahan haysanay wuxuu ahaa 200 oo bir oo Itoobiya iyo 80,000 oo shilin oo Soomaaliya laba gaari oo markaa aan shilaad ku jirin oo gaari xaajiyad iyo Land Cruiser oo qolofana meel baan ku haysanay 100 bir 80,000 oo shilin Soomaaliya 100 bir bay ka yartay macnaheedu lacag 300 oo bir ka yar waa around $20 waxa la qiimaa maanta ama ka hooseeya way ma way ka hooseysaa $20 dagaalka inaan galayno ku khasbanay waxaa dhacday markaa baabuurtaana inaan la fakanno garigo-aan annagoo joognaan laba dameerna waxaan u ranay sheegoosh midna birqod waxaan nidhi baabuurta waddada socota shidaal inooga soo shur ilaahay wuu noo soo buuxiyey shidaal intaan ku shubnoon cafadhka ka talownay dad ciddii garan baa garanaysee toggu wuu socdaa markaa laakiin nin dhul ninkiisi baa iskale bay ahaydoo meesha laga mari kara xilligaasoo kale ayaa naqinay labadii baabuur iyagoo naga daydayaya dusha sibi intaan warwareejinay habeenkii labaadna dhuusamaree bay joogay taasi waa ilaahay mahadii waxaa la odhan karayaa waxyaalahaasi ma aha innagu waxaan suuro gelinayna allah suuro geliyey laakiin maxay tahay shacbiga iyo ummadda reer Ogaadenya ayaa doontay inay qadiyadeeda gacanta ku qabsato inay u dagaalanto inay u sabirto inay meel mariso waxa ay iyagu dooneen siduu wuxuu noqon lahaa ilaahayna la kaashadaan xilligaa waxyaalahaan marka la kulanay waxaa weeye horta qadiyadaas intay socoto inaan dulmi ka ilaalino oo aynaan cidna dulmin waxaa ka mid ahaa go'aanada maalinka aan gaadhnay dhibaatada geeska Afrika ka joogta walaalaheenna Soomaaliyeed iyo ummadii Soomaaliyeed haysata innaga wayna dhibi doontaa maxaan ka yeelaa waxaa go'aanku maalinka noqday Soomaali baa ina dili doonta qabiil bay inoo arkayaan wayna dhibi doonaan Itoobiya kulligood ma taqaana daba dhilf u yihiin maxaan samaynaa waxaa go'aanku ahaa inta aynu Itoobiya meel isla gaadhayno waxa Soomaali inaga yimaada bendin hayno ahada dib inoogu dhiga qof Soomaali ayaan xabad ku ridin qof Soomaali aan ayaan waxba u dirsan ilaahay xamdigiis halgankii marka korba u soo kacay maanta heer baan joognaa heerka aan maanta joogno Itoobiya halkee bay joogtaa halgankiisa halkee bay joogtaa halgankii wuxuu joogaa halka aan idiin sheegayo maanta aan calankiina qorraxdu ka dhicin intaa hadda isu timid aad aragtiin dadka aad iyo aad u fara badan ee hadda hoolka intaa la eg soo buuxiyey inay meel walba adduunka meesha tagtaba ay diyaar u tahay oo ay sida ugu halgamayso yaa horta ilaahay gaarsiiyey waxaa weeye ciidanka sharafka leh ee ku beeniyey cadawgii Itoobiyana wiinoo aasaasmay heerkaana wuu gaadhay sharafka ummadana ummad sharafkeedna waa ciidanka sidiisa waxaad ogtihiin in dhulka Itoobiya ay xukunto ee hoos yimaado ay maanta Tigreeg wada gadayaan qaar baa waxay yiraahdeen haddaynu xabadda dayno Itoobiya ma taqaana waxaan la qaybsan lahayn xabadda kan kada ninna waxaan qabsan ku qaban maayo ninnana hiil aadan astaahilin ku siin maayo wax lagugu xisho iyo meel la qiimeeyo adu iskeen maantana halgankii iyo ummaddu waxay joogtaa meel loo xisho iyo meel lagu qiimeeyo waxaa jirta geeska Afrika maraaxil badan baa la soo maray sama wixii ka dhacay waad ogtiin ummadda Soomaaliyeed oo dhintay dagaalka haddana dagaalkii lagu fashilay qadiyada kaliya ee waxay ahayd arrintaasi dagaalkii qaboobaha bari iyo galbeedba ay qolana
la safatay la dagaalamaysay qolada kalena ay ku daawanaysay in la jebiyana ay ogolaatay xaaladdu hadda way isbeddeshay loolanka caynkaa wuu dhammaaday dan baa timid hadda meesha dani ma kugu jirta mise dani kuguma jirto marka innagaa la rabaa inaynu la nimaadno wax laynoogu xusho etoobiya adiga marka la iskiin garab dhigo haddii aadan la imanin oodan imanin meel loo xusho dee ninka fiican baa la qaadanaya maanta marka halkeen maraynaa geeska africa waxaa looga baahan yahay resourceska ku jira iyo khayraadka ku jira in la dhacfisto wax loo baahday bay noqotay amni iyo deganaanshe nooc kastaba ahaadee in laga helana ilaa bayrasiga mataqaanaa badda ku jira in la dejiya ayaa loo baahday intaasoo dhan waxay ku xidhan tahay maanta qadiyada ogaadanya xalkeeda bayrasigana lama xallin karo deganaashana geeska africa lagama samayn karo haddaan qadiyada ogaadanya la xallin resourceska yimid maaha shidaalka ka buuxa geeska africa ee khaasatan ogaadeena ogaadeen basin waa adduunka o dhan isku raxsan yahay shidaalka carabta xataa haddii shidaalkaasi markuu joogo in la soo saaray carabtiina waad ogti saad ula socotiin baa ceelasha way ingegeen time yar baa u hadhay wax yaroo kaydad u haystaan mooyeen ma dhacayso taasina in saa dhuun loo daro ilaa qadiyada ogaadanya la xalliyo taasi maxay marka keentay adiga marka in hadda lagula xisaabtamo ninkii dan kale geeska africa waa inuu ONLF la xisaabtamo hadduusan la xisaabtan ninkii ogaadaya dan kale waa inuu ONLF la xisaabtamo eeg dadka qaarkii waxay yidhaahdeen dadka soomaalidu waxay ku mahmaadaa hal barhkeed qalan yahay barhkeed ma fayooba geeska africa meel kasta oo qof soomaaliya joogo dulmiga ogaadaya ka jira intuu joogo nabadi ka jiri mayso mana xasilayso laa waxaan koonfur ugu hooseeya ilaa ka waqooyi ugu sheeya ilaa jabuuti ayaan xasilayay mana dhacayso leanna waxaa weeye dulmi baa jira dulmigaasina wuxuu saamaynhayaa qof kasta oo soomaali ah xaqiiqa weeye xataa ma inuu ogaadaya yahay oo kuwa ogaadaya ku nool ku dhammaaha qof kasta oo soomaali ah wuu saamaynayaa wax kala goyn karaana ma jiro taana ogaada iyadana etoobiya marka alli ahaada mawqifka marka etoobiya maanta halkay bay joogtaa iyadu etoobiya maanta waxay joogtaa meeshii ugu hoosaysay dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan intaba bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan markaynu leenahay etoobiya kaydkeedu maanta etoobiya waxay ku nooshay horta waa hand feeding waa la quudinaya maadaama la quudinhayena danihii loo quudinhaya way soo yaraadeen istaraatiijiyadeedina way soo yaraatay qiimahii geeska africa ku lahayd hal baa u hadhay hadda wax la yidhaahdo diin islaam iyo wadaad mataqaanaa qaacida iyo wax caynkaasa ayay hadda ku warwareegtaa wixii kale oo dhan factorieskii kale oo dhan ay wax ku soo jiidanaysay way baaba'een taa lafteeduna waxaa weeye isgoyn inay dhammaatay hadda sii taagan tahay ama waxbaba inayn ka qaban karin oo xataa inayn effecti ku lahayn markii taa laga yimaado dhaqaalana ma laha etoobiya wax soo saar meel wax laga soo saaro gambeella ayaa beera lahayd gambeellana beeraheeda inay wada gadeen oo ka gadeen mataqaanaa hindiya iyo sacuudi arabiya iyo china waad ogtiin halka wax laga raadinaya ee loo xiranaya waa ogaadanya beeraha la gadayo waxay ku gadaysaa etoobiya $0.65 waa $1 wax ka yar bay nadkii higtarka ku karaysay ma waxaad u malaysaa ninka heerkaa joogaaya inteebu joogaa baad u malaynaysaa waxaa weeye dhulkii bay boobayaan etoobiya kala taggeedii baa iyada soo socda waa kala dhaqaaqi socially politically waa sidaa hadda 82,000 oo dadka amxaarada la odhan jiray oo dadkii waagi hore dhulka etoobiya dee ku faafay ay gumaysanaysay ee dhulalka qabsaday bay ka soo wada rareen waxay dhaheen markii hore aad sharci darro ku qaadateen waxaan ka kiraynaynaa shirkadaha ku noqda amxaara iyo gobolkiini dadka gaaja u dhammaanayaan magaalada adsaba hadda kuyuubaa waxaa lagu jiraa commoditieska mataqaanaa nolosha sida sonkorta saliidda iyo cuntada food stuffka kaleeto yaa kuyuu loogu jiraa oo qofku isagoo taagan naftu kaga baxaysaa way sii ingegaysaa kaydkeeda shidaalka 10 beri ma dhaaf wuu ka hooseeya horta ducfiga halkaas ayay joogtaa dhaqaale ahaan siyaasiyanna waxaa weeye wax kasta oo la siinhayay
waxyaalihii loogu talagalay inay wax ku xalliyaan way ku xallin waayeen intaas Ethiopia markay noqotay dagaalka ogaaday iyo gudaha Ethiopia waan ka adkaanay runtii Ethiopia gudaha waan kaga adkaanay laakiin Ethiopia markaan ka adkaanay waxaa dabar nagu noqday oo niyadan idin sheegaya ummadii Soomaaliyeed waan kala farxalan lahayn baan aaminsanahay by this time haddii ayna Soomaali dabar ku noqonin qadiyada dadkii aan walaalahayn ee Soomaaliyeed ee nida aynu dib u dhigana waxooda ayaa dabar nagu noqday waxay noqdeen cudud bay u noqdeen oo ciidankoodii bay garab istaagayaan oo wayna soo qabanayaan markaas si cadow u dhigayaan dabar bay kugu noqdeen oo marinkii iyo socdaalkaagii iyo halgankaagii iyo taakuladaadii iyo logistikadaadii iyo caqabad ku noqdeen hadda wayba ka tageen oo dhaqaale u noqdeenoo lacag bay u aruurayaan oo u shubayaan lacagta lagu fiid garaynaya hadda waa laga gooyay dhaqaalihii horumarka ahaa oo dhan dhaqaalihii ciidamadoo dhan waa laga gooyay wax yar oo ah mataqaanaa foodka oo aidka cuntada ah ayaa hadda ku soo harharaya dhaqaalahoodii wuu sii baaba'aya lacagta hadda Ethiopia mushaarka loo siinhayo ee lagu kabayo waxay joogtaa in Soomaali laga qaado ka warrabo waad ogtiin hadda London xawaaladihii Soomaali oo dhan inta la soo arooriyay 200,000 oo pound 500,000 oo pound ka shubay ka 100 ka shubaya Ethiopia loo shubaya waa very very disappointing okay waxaa qiyaamaha maxay kaga jawaabi doonaan soo ma aynan ahayn sad afar baa la su'aali doonaa qofka qiyaamaha ilaahay hortiisa kuwa la su'aali maxaa ka mid ah xoolahaaga meeshaad ka keentay iyo meeshaad ku bixisay bal xoolaha meeshay ka keeneen ha dambayse kolkii la yidhaahda sinaabi baanu ku kaalmaynay inuu ogaado iyo ku caburiyo jawaabtoodu maxay noqon doontaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay baa u jawaabi doona kuwa waxyaalaha yaabka kale waxaa ka mid ah inay aad iyo aad cajiib ku ah warbaahintii Soomaalida afka kii kala qaadaay wuxuu doonayaa inuu ka farxiyo sinaawi wuxuu doonayaa inuu ka farxiyo amxaaro wuxuu doonayaa inuu wahan geliyo mataqaanaa gominidoonka iyo cidda hore socota ummadda Soomaaliyeed marka waxaan leenahay walaal Soomaaliyeed halgankan waa halgankiina waajib ina wada saaraa yaan fulinaynaa inaad noo hiilisaan baan idinku lahayn inaad gacanna siisaan baan idinku lahayn haddii aydan gacanna siinayno noo hiilinayno hagardaamada naga daaya Soomaali waxaan leenahay hagardaamada ka daaya halgan wixii hadda ka dambeeyana haddee waxaa la yidhi waraaba daalaba dirtiisa loo tagaa bay odhan jiray ma aan doonayay inaan mataqaana hadda nidhahno Soomaali baan anagu wax ka qabanayno leynaynaa inaan nidhahno ma doonayno laakiin Soomaalidu had in la xishoodaan u baahannahay inay dib ugu soo noqotaan u baahannahay inay xisaabtamaan baan u baahannahay midna waa for sure ogaaday inay xoroobayso taa shaki nagagama jiro ogaaday way xoroobaysaa nin walba dib xisaabtaada habadsan in sha Allah ta'ala way xoroobaysaa in sha Allah ta'ala way xoroobaysaa إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر وحاوية تاسوية شعب كان كعي ومضى نورش الدونتي إلهي قدر كيس أجيبه إلهي ما كعنكره ولو كنت غليظ القلب لانفضوا من حولك يا ضد كان سكاني إلهي فضلك على سكاني مركا إلهي سكاني ما ميل مرينيا وآثارت لغو قران كرو وحا قوشة إيا النصر ومتقانا كتاغية مركا إلهي إذن كيس حمدك إلهي باسكالي وفضل الله مركا وقادا يدو حروبيس إن شاء الله تعالى وأين فوقين إتوبيا أي كلا تغيسو warkii Soomaaliya ahaayo wax isku lahayd aad wax isku lahayd baan ku leenahay aad baad u liidataa meel xun baad kala lataa taariikhduna way ku qoraysaa hadda xisaabtuna ha u malaynina inay hadurun iska ahaan karayso oo la taag marma la xisaabtan doona Soomaaliya horta taasaan u sheegaynaa aad iyo aad baad u bahadsantihiin intaasaan idinku soo hadal ku soo jaraya wixii su'aalihi iyo wixii kale insha Allah inaan waqtiga dadka ka wada qaado maaha aad iyo aad baad u mahadsantihiin guul iyo gobonnimo ilaahay caruurteena wiilasheena ilaahay aan ku ducaysan in ilaahay ka dhigo sida aad dirrano
wax yar haddaan in yar sii raaca hadalkii adeer uu hadallo uu ka dhawaajiyay qaar waxaa ka mid ahaa desperation yaa desperate ma inaga mise iyaga horta sideedaba maxaa lagu qasbay inaan qori qaadano ilaan qofka ninka qoriga wata dhulka cirka kamuusa soo dhicin mo waxay ahaayeen raggii iyo gabdhihii iyo hooyooyinkii guryahooda loogu yimid iyaga ayaa weeraray marka ilmahaaga lagugu hor dilo hooyadaa lagugu hor kufsado maalkaaga lagugu hor dhaco diintaada lagugu yimaado iyo dhulkaaga iyo dadkaaga qasab ninka dhiig lagu kacayaa qoriguuna qaadan marka taas aan ugu qasabtay horta inaan inagu aan qori qaadano marka halgankaasi waa mid defensive ah isdifaacid ayuu ku salaysan yahay waa mid xaq ah marka adigu waxba maada soo weerin adaa lagu soo weeraray marka waxaa weeye marka laba siyaabo qofka marka sidaasoo kale loo soo weeraro ee halganka noocaasoo kale ah waa laba mid horta kan wax gumaysanaya iyo kan la gumaysanayay isku awood horta mana isu dhow kan wax gumaysanaya ayaa ka awood weyn 100% ka maal badan ka hub badan ka dad badan laakiin hal wax ayaa qofka la gumaysanaya mar walba dhinaciisa caqabadna ku ah ka wax gumaysanaya waa maxay waa waqtigu waa cadawga koobaad ee ka wax gumaysanaya timeku inta uu dheeraanayo ha u malaynin adigu inuu muxuu ahaa timeka ugu dheeraaday intaasaan halgamaynin horta hal mid dadka daala kuwa daala horta aan iska qabano markuu nini daalo wuxuu dhihi waa la daalay dadkii way daaleen 100 sano la dagaalamay war adaa daalay dadka mayna daalin dadku la adaa daalay naga aamus in la dhaho way marka ku talagal waqtiga dheer aduu actually faa'iido ku yahay why sababta waxaad baranaysaa meelaha dulduleelka gumaysiga oo dhan ayaad baranaysaa adiga khibrad baa kuu koraysa experience waad yeelanaysaa ciidankaagu kuu tababaran ciidankaagu resilient buu noqonayaa shacab waxaad noqonaysaa adag oo iska celin kara dhibaatada marka ku dhacdo u adkaysanaya much more stronger baad noqonaysaa marka waxaa jira marka gumaysiguna waxaa weeyaan dhibka ugu weynaysa ku dhacaya waxaa weeye inta uu halgankaasi socdo uu dheeraanayo isaga waqti baa ka gelaya hub baa ka gelaya meeshii uu qoodin lahaa dadkiisa gaajaysan ayuu hub ku gadanayaa ciidankiisa waxaa weeye waa inuu bedelo sababta nin aan dhulka lahayn oon u dhalanin oo isaguba dhoof ku yimid oo muxuu ahaaye aan deganayn oo mushahaar muxuu ahaa lagu siinayo oo raba inuu gurigiisa ku noqdo markii muxuu ahaaye la yiraahdo heegan 24/7 heegan noqo ee muxuu ahaa ciidamadeenu ay miraan habeen walba waxa weeye maskaxdu iskala hadlaa depression baa ku dhacay Ethiopia waxay ku qasban tahay marka 6 biloodba inay bedesho ciidanka oo dhan inay bedesho oo ciidan kale ku bedesho taa laftirkeeda hawl yar ma waxa Ethiopia gaajada ka dhigay waxay gelinaysaa maalkeedii oo dhan waxay gelinaysaa hub iyo muxuu ahaa ciidan bedelid iyo muxuu ahaa sida adigu kula dagaalamay ciidankeedina waa gaajisay marka ma adkaysanayaan hawsha markay sidaa u socoto waqti waxay gaaraysaa tipping point inay gaaraysaa waqti waxay gaaraysaa internal collapse baa ku dhacaya marka sida way dumaysaa marka sidaasay ku dumi ma aha inaad adigu intaad hal maalin kaga adkaanaysa ma saad u mirayso sida waad aragteen xarka geedka markuu galo hal maalin kuma dumiyo soo cunay maalinka dambe geedka weyn u dhacaya inaguna saasoo kalaana marka timeku inuu dheeraado adayba ku wanaagsan saa oo la socda Assalamu alaikum. How can you live with you feeling invisible? Nobody really notices, they can't see the visual. And the things you say, they don't take it literal. They think it's a gimmick when you say you're gonna quit it. Quit what? Quit life. No one's gonna miss you, not a single tissue will fill with tears. When the sounds start, cause laughter is all you hear. You hang with all the crowd cause you don't feel like being pressured by a peer. You're sick and tired of all the fakeness. Think they're your friends, but they're really here to take ish. They see hospitality and then they rape it. You keep waiting for it to end, but then again, you wanna give it another chance. You should give the Ogaden soldiers a standing ovation for remaining strong through devastation. We're patiently waiting for the ground to stop shaking. Their new life, we're ready for the awakening. Then you come to realize, looking at the beauty of life, you get to thinking twice. Who cares if nobody supports us? It's all about the success and drive by a ton too. So what you gonna do? I'ma live my life without hesitation.
hear myself on the station, get the right justification, fulfill my imagination, the crown is my medication, success is my concentration, and when I think there's not enough inspiration, I'ma feed it to my motivation. haddii marka aan in yar dadka aan ingiriiska ku hadlin af ingiriiska aan in yar u yara taabtay gabadhu waxyaabahay ka hadashay ma ahayn wax kale waxay ka hadlayso uun mabaadi'dii oo nala bay sheegtay isku tashi midtid midnimo iyo adkaysi intiiba iyada un baa sheegtay gabaygaa yarkahay ku koobtay marka maasha allah waxaan haddana rabay dhinacii gabayadu way noo socdaan ingiriiskii marka waan ka leexanaynaa bal af soomaaligii baan gelaynaa marka dhinaca hooyooyinka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo halganta daxaliimo guuleed hadda ka horta waa wiil yaroo maaragtay ay wiilashan eega 20 jirka u kacaya ee 20 jirka galahaya yaanu meel ku murannay waxaan idhi waryaahe adoo inta la eego 20 jira waay aad muxuu ahaa Itoobiya ugu hiilinaysaa wuxuu yidhi wallaahi tan iyo maalinkaan dhashay iyo maalinkaan maanta inta ka dhexle xabad u baa socota maxay ahayd xabadan baase oo na daba gashay waxaan idhi wiil yahow shala dhalatay halgankeenu waa horay wiil yahow shala dhalato shalkii baad la kulantay halgankeenu waa horay sayid maxamed nuur iyo gumaysigu wuxuu yahay sayid maxamed nuur iyo axmed gure iyo sal daahir weydii baan ku ya gumaysigeenu marka wax yaroo hadda soo kooban muu waa wax maaragtay dhibaatadiisu badan tahay laakiin waxaan leeyahay oo kaliya tahay wiilasha dhalinyarada iyo gabdhaha dhalinyarada oo annagu waanu gabownay dad waaweyn oo duqayti aanu noqonay laga yaabaa inaanu gaari doonana laakiin wixii calanka inuu u aayo la rabo waa ragga mar curadka ama dhalka hadda ka ahaya ama muxuu ahaya dhalanaya haddii alla idmo haddii ilaahay nabad ka dhigo weeye waxa weeye walaalayaalow ragga dhalinyarada ah eega maaragtay muxuu ahaya ka ahaya ha ku talagaleen inay maaragtay gobonimo qaataan oo calankooda qaataan oo sida ayna maanta Mareykan ugu noolahay ee ugu looga soo haajiray wadankooda hooyo ay ciida in loogu haajiro ha ku talagaleen oo nin walba ha ku dheeraado geeridana maba dhaafaysa ruux walba amaaninkii uu dhashay maalinkii uu maaragtay rabbi la damcay maalan hay mu u dhaafahayo ilaahay oo intaan eegi joogtay maxaa dagaalankanada ka dhacay ama la baqday ama dal la baabiyay haddana ma karo waynu noolahay waxa weeye ragga dhalinyarada ah oo bal halganka ha u malaynina inuu dhalanteed yahay ku talagala waxa loo dagaalamahayo inuu idinka yahay dalkuna dalkeenni ma ahe dalkeenni hooyo iyo ciideenni macaaneed way inaga dambaysaa marka hore haddii alla idmo waxaan ku soo dhawaynaynaa salaan diiran wadaadkeena inoo yimid insha allah ee diiranaa gaashaan dhigeeniyo gobonnimo u diriirkiyo kuwa garabka haystiyo gacanteedna midigba geesiyaaliyo kuloobinoo yimide waa inaan salaanaa igaya cuduriyo ninay tawsu haysaa ileen tahmadaaye igaya cuduriyo ninay tawsu haysaa ileen tahmadaaye calankan sugaayiyo ciidahayda hooye uu cadowgu haystaa ileen tahmadayse igaya cuduriyo ninay tawsu haysaa ileen tahmadaaye calankan sugaayiyo ciidahayda hooye uu cadowgu haystaa ileen tahmadahayaan anna boobaha iyo birmadkama dahaye anna boobaha iyo birmadkama dahaye intaay duufaaniyo gorgoray ku nool yihiin nabad kuma caweyside adiguna tigreeyow ciidaydo yana kaga carari mahaye
dhaxalkii awaawgay kaga dhafi mahayo kaga dhuuman mahaye inta ay gorgooriyo dufan dalka jooga nabad kuma caweeyside intay xeeba ololiye adiguna tigreeyo intay xeeba ololiye adna xagashahayso kaa weecan mahayo weehweehan mahayo kaa wahaban mahayo warankaanu sidana waydahan ku haynaa geerida madiino madarena gaajada geerida madiino madarena gaajada gooriya ayaanba gurmad baanu nahaye guulo walaayo gobonimana siiye geerida madiino madarena gaajada geerida madiino madarena gaajada gooriya ayaanba gurmad baanu nahaye guulo walaayo gobonimana siiye sayid maxamed nuuriyo axmed guuray dadkiisiyo sayid maxamed nuuriyo axmed guuray dadkiisiyo sayid maxamed nuurba geesigay dhaleenba gayigiisa joogo girinofka qaatee adiguna tigrahaygow nabad kuma caweeyside adiguna tigrahaygow nabad kuma caweeyside waa inaad ogaataa adiguna tigrahaygow nabad kuma caweeyside waa inaad ogaataa sayid maxamed nuuriyo axmed guuray dhashiisiyo sayid maxamed nuuriyo geesigay dhaleenba gayigiisa joogo girinofka qaatee adiguna tigreeygow nabad kuma caweeyside waa inaad ogaataa gaarida ordeeyaysa gobonimay rabtaayo geesigay dhashaybe yay garabka haysaa huda cali xareed ayaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo iyadoo in yar rabta inaan nooga faahfaahayso ururka dhallinyarada iyo waxa uu taagan yahay marka fadlan nala qaybso waxa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad ugu faraxsanahay inaan shirkan ka soo wada qayb qaataan xaruna ka yara hadlo ururka dhalinyarada San Diego known as OISU, and OISU has the mission of raising awareness and doing advocacy for the atrocities that are going on in the Ogaden, to raise awareness about the genocide that's taking place there. And mashallah, we have a very great group of young folks here in San Diego that are part of the organization. Mashallah, Jalid San Diego and the older generation, they've done an amazing job with the cause, the forwarding cause cut. But if there's going to be an actual change in the Ogaden, if real justice and real peace is going to be about, it's going to be due to the younger generation. And so, in order for that to happen, that means we need to increase our numbers. In order for us to become a powerful force, there needs to be more of us. So how does that look out? Why is it that all these parents that are here, why did you guys not bring your children today? Why did they not come here and see other Dirana for himself, for the information he has to share with us? So, the one thing that I ask from Waladinta is, inshallah, to encourage your children to come, whether they're in elementary education, middle school, high school, whatever age they are, to involve them. Every Sunday, we meet. And we meet what we can do, and we put up different events at the different colleges, and we wanted to put up events at the different high schools, but we need your children to be more involved. Inshallah, that's all that I ask of you guys, and inshallah, we can start on the Thursday then. At UCSD, we have an event in honor of the women of the Ogaden. So that could I think it's
You guys are more than welcome. If you need rides, we have cars. We'll come by all of you guys, inshallah. And thank you guys for your support. وحاول قبله وحي نقول هذا الشيء ماشان هو يوين كجوجا وحاول أبد بدلهم أبد كماشان جوجا هو قاعدين أما الصومالي النقطة معها وحاول قرباء حدي أين المنطقة أن هلكن كان يو تاريخ دودي يو أين كقيب قادن وحد أوقاتان ملك أي آذية وحن نقول تلنا أو ينكر إنيهم شيء يقول برتان رقم كوده دين توده دل كوده إن أي كسر قيب كلام هلكن كان وحاول وقت بيجليان وقت ملك آذي لهاين هل كاسي يكون مشغول هايان أخلاقيا يدينيا يو سكستبا وحاول وماشي أبونا سلا المهم أرتي كتبه برنيا وحاول قبلها وقبل غالية نفتو دي بيؤهر المدو دي دلكو ده مركا وحين يقعوا صنيا هو يوينكا إن أي قعان سيان سي المهو ده أقصو دير الله هي سيدي متقانا أرنتها أقول قادن لين هقل كان أقول مثل الله وما سنتين ما أرتي أقول كبالي الرئو قادية قوليستان الله waa tahay daawadayaal barnaamijkeenii waa naga intaa aan mar kale hawada dib ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo waxaan sidana anashada dhulkeennii tahay daawadayaal barnaamijkeenii waa naga intaa aan mar kale hawada dib ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo waxaan sidana anashada dhulkeennii